wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan mid kamid a barnaamijkii ciyaaraha oo saacadahan oo kale aad ka daawataan telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. daawadayaal sidaad barbarkayga midig ku arkaysaan barnaamijka ciyaaraha habeenkan waxaa noogu martiya Maxamed Khadar Axmed Kabadhe oo loo yaqaano oday. Maxamed Khadar waxa uu ka tirsan yahay kooxda dawladda hoose waxaana uu yahay kabtanka kooxdaasi dawladda hoose. waxaa kaloo u ciyaaraa xulka gobolka Maroodijeex. Maxamed Khadar kusoo dhawow barnaamijka ciyaaraha iyo habeenkan caawa. waan dhawahay aad iyo aad buu mahadsantahay. haddii aan Maxamed Khadar ku weydiiyo saashida ugu horeysa ka Maxamed Khadar ahaan adigu halkeed horta ku dhalatay, halkeed kusoo barbaartay, halkeed wax kusoo baratay, halkeed kubadda ka bilowday? dad badan oo ku garanaya oo ku garanaya ciyaartoy ahaan ayaa haddana jecel inay backgroundkaaga amaba taariikhdaada ogaadaan. Maxamed Khadar halkuu kusoo barbaaray, halkuu kubadda kasoo bilaabay? horta ugu horeyn waxaan intaan barnaamijka gudagelin waxaan doonayaa inaan salaamo daadiyaha barnaamijka adiga Jamaal. haddaan ka warramo halkan kusoo barbaaray ama dhalashadayda oo kale aad weydiisay, waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa. isla magaalada Hargeysa ayaan waxaan ka bilaabay barashadii quraanka oo aan ka galay macaamad anagoo markaa deganayn xaafadda shacabka. isla halkaas ayaa waxaan ka galay dugsigii hoose dhexe ee Xuseen Giri loo yaqaano, iminka loo yaqaano Sheekh Madar. iyadoo markaa dugsigii sarena aan ku biiray dugsiga sare ee Faarax Umar. halkaasaan aadu tacliintayda iyo barbaartayda oo halkaas ahayd. kubadda lafteedana waxaan ka bilaabay isla xaafadda shacabka oo kooxdii ugu horeysay ee aan u ciyaaro aan kubad u ciyaara waxay ahayd koox aan markaa aad u daayareed oo kooxaha heerka saddexaad la odhanay ah oo la odhan jiray Patrol. halkaasaan kasoo bilaabay barbilowga kubadeed halkaas oo ah. صح. محمد خضر adig ka ciyaartoy ahaan intii aad kubadda ciyaaraysay amaba aad ku dhex jirtay mihnada kubadda koobabkii goboladayna soo maraa inteeyo koobad aad ka qayb qaadatay? bismillah, waxaan ka qayb qaatay ka Maxamed Khadar ahaan waxaan ka qayb qaatay labadii tartan goboleed ee ugu dambeeyay. midna ka qabsoomay magaalada Burco gobolka Togdheer, midna kii ugu dambeeyay waxaa garoonka Hargeysa Stadium ka dhacay oo labadaba anagu aan ku guuleysanay anigoo markaa u ciyaaraya kooxda caasimadda ee Maroodijeex. labada koob adiga ka shakhsi ahaan keebas dareen gaara kugu lahaayo si gaara kuu saameynay? wallaahi horta waxaa la yidhi sawir waliba taariikh buu ka hadlaa. labada tartan baa waxay igu leeyihiin taariikh gaar marka laga hadlayo mihnadeeda iyo xirfadda ciyaareed ee intii aan kusoo guda jiray ciyaaraha. waayo labadiiba annagaa soo hantinay oo dee kusoo guuleysanay. laakiin mar walba waxaa xasuus gaara yeelanaya dee maaragtay tartanka aanad magaaladaadii ku ciyaareen. imika kanaan ku ciyaaranay Hargeysa Stadium annagaa marti naloo ahaa, laakiin kan gobolka Togdheer ku ciyaarnay ayaan kusoo guuleysanay annagoo marti ah ayaan soo guuleysanay. markaa kulleyba waxa aniga xasuus iyadoo labaduba dee ay aad maskaxdayda uga dhex guuhayaan, haddana waxaa xasuus igu sii leh kii sanadkii 2011 aan kusoo ciyaarnay gobolka Togdheer. Maxamed Khadar goormaad adigu ku biirtay xulka gobolka Maroodijeex? bismillah, sanad markii la qorsheeyay in la qabto koobka gobolada oo ahayd sanadkii 2011 bishii December bilowgeedii ayaa dee gobolada waxaa loo soo xulayay ciyaartoydaasoo markaa dee matalayay gobol walba. markaa gobolka Maroodijeex waxaa matalayay kooxaha heerka koobaad ayaa ciyaartoyda matalaysa laga soo xulayay.
markaa waxaa nasiib u yeeshay inaan kamid noqdo ciyaartooydii laga soo xulay kooxda dowladda hoose ee matalaysa gobolka Maroodijeex. dareenkaagu sidee buu ahaa markii aad ku guuleysateen koobkii lagu dhigay gobolka Togdheer magaalo madaxdiisa Burco iyadoon xulkan gobolka Maroodijeex muddo dhan ay amaba koob ugu dambeysay la odhan karo 2001 in aad 2011 ku guuleysataan oo muddada intaa leeg ay u dhaxaysay dareen intee leeg bay ku abuureysay idinka? wallahi dareen aad u weyn bay ahayd in aan anagoo martiya aan gobolkii aanu matalaynay caasimadda aan koobabkii meesha lagu dhigayay hadday noqoto kii orodada, hadday noqoto kii basketka iyo hadday noqoto kii kubadda cagta aan saddexdiiba keena caasimadii. wallahi waxay ahayd dareen aad iyo aad u weyn iyo dee wax aan magaranaysaa lama filaana kamana aan raagino dee wax tartamada la qabtay ee u dhaxeeyay 2001 ilaa iyo 2011 10 sano ayuunbaa yaraa oo 2-3 tartan bayba bidilhaantooda ahaayeen. laakiin 2-3 tartan idinku maydu qaadin waaran maanaan qaadin. waxaan nasiib u yeelanay markii afraad ee la dhigo ama markii shanaad inay ahayd markii shanaad ee la dhigo inaanu anagu dib ugu guuleysano anagoo markaa kooxdan gobolka Maroodijeex ahayd kooxdii hantiday koobkii ugu horeeyay gobolada la qabto. Cabdi Khadar waxay ugu maqaalaa inaad tahay kabtanka kooxda dowladda hoose. kooxda dowladda hoose goormaad ka mid noqotay, goormaad ku biirtay, goormaad kabtannimada kooxdaasi ka qaadatay? bismillah. kooxdan dowladda hoose ee Hargeysa waxaan kusoo biiray sanadkii 2009 waqtigaas oo aan kaga soo biiray koox heerka labaada oo ka dhisan xaafadda Jigjigeer oo Cafe Enterprise la yidhaa. markaa 2009 markii aan kusoo biiray kooxda dee waxaa joogay niman badan oo waayo arag oo kooxda ragii rugcadaayadeedii ahaa. intaa wixii ka dambeysay adu kooxda ayaan la jaan qaaday oon la qabsaday. kabtannimada kooxdana waxaa lay dhibay muddo ilaa imika 3 bilood 4 bilood ka hor. Cabdi Khadarow markuu qof ka soo wareegayo koox uu soo wareegayo koox kale dareen gaar ah bay leedahay. adigoo ciyaartooyo hore la soo ciyaarayo isla qabsadayo markaad ka soo wareegtad koox cusub timaado haddana way adkaanaysaa sidaad ula qabsan lahayd ciyaartooyadaas sidaad uga barbar ciyaar lahayd oo muddo waqtigii ku qaadanaysa. bal dareenkaaga markii aad kooxdan kusoo biirtay sidee ayuu ahaa, sideed ula qabsatay kooxda? bismillah. horta haddaan ka warramo kooxdan dowladda hoose waxay ahayd koox horta marka horeba anagu taageeri jiray oo dee ahayd kooxan anagu jeclaa. kooxdan aan kaga soo biirin waxay ahayd koox heerka labaada. waad dareemi kartaa qof markuu heer labaad kasoo baxo oo heer koobaad u dalco dee farxaddeeda ayay leedahay oo dee waxaa tahay qof level ka gudbay oo level kale u gudbay. markaa wallahi waxay ahayd dareen dee aada iigu weynaa. kooxdan kasoo wareegana waxay ahayd koox heerka labaada. kooxdaydan aan kusoo biiray oo markaa niman badan oo waayo aragii ay joogeen ayaa waxay ii sahashay inaan si aada u fudud aan ula jaan qaado oon ula qabsado. markii aad usoo gudbaysay sero eeda ma adiga unba kooxdii miyo ogaansaday mise cid baa ka caawisay inaad kooxdii timaado ood usoo gudubto halkaas? waxaa jirtay kooxaha oo ilaa imikaba jirta ciyaartooy heerka labaada oo firfircoon oo soo baxaya marka la arko kulleyba kooxaha dee diiradda la saara oo ma garanaysaa sidii dee kooxda loogu soo jiidi lahaa oo noqon lahaa dee qof hadhow mustaqbal kooxdan ku yeeshaa. marka aniga inaan ka tirsanaa kooxda dowladda hoose oo Cabdikariim la odhan jiray ayaa igula taliyay inaan kooxdan imaado. sidii baanan ku imid oo aan kaga mid noqday markii dambe. markii aad kooxda ka mid noqotay ee aad kooxdii muddo safanaysay waxa lagu siiyey kabtankii kooxda inaad noqoto, kooxdii aad ku dhiiranaysay inaad marun ka mid noqoto.
bal dareen intee leeg ayaa ku galay markii aad kabtannimadii kooxda adigu aada gacantii ku dhigtay kooxdii aad ku hamiyeysay inaad muddo badan timaadeed u ciyaartay haddana kabtankeedii aad ka mid noqotay dadka wax laga dhagaysto aad ka mid noqotay dareen intee leeg baa ku galay? bismillah, horta ugu horeyn waxaan halkan aada iyo aada uga mahadnaqayaa saaxiibkay kabtankaygii hore maxamed cabdi xasan gafindhe oo ciyaartoy weyn oo loo yaqaano oo ah kabtankii hore kooxda dowladda hoose Hargeysa. isagaa gartay inuu iska wareejiyo kabtannimada oo uu ku wareejiyo dee nin kale oo kooxda kala mid a, si markaa dee dadka loo tuso inay waxaan yihiin wax ay kooxdii ka dhexeeya, oo maanta isagu shalay isagu ahaa maanta anaan u ahaanayo, berrina mid kale uu noqonayo. ninkaa gartay horta isaga aad baan ugu mahadnaqayaa in dee kabtankii kooxda weji kale oo cusub uu ku wareejiyo, iyo macalinka kooxda oo isaga laftiisu anigay magacaabay inaan noqdo kabtanka kooxda. haddaan jawaabta su-aashii aad weydiisay usoo noqdo, wallahi waxa weeye dareen aada iyo aada u qiimo badan oo aada u weyn in koox aad ku fikiraysay inaad ka mid noqoto, inaad haddana noqoto hogaamiyaheedii, oo wax aada iyo aada loogu farxayo. aniguna aada iyo aad baan ugu farxsanahay inaan noqdo hogaamiyaha saddexaad, hogaamiyihii saddexaad ee kooxda dowladda hoose Hargeysa inaan noqdo aada iyo aad baan ugu farxsanahay. inta aad kooxdan dowladda hoose ka tirsanayd maxamed khadar, wax caqabadoo kaa horyimi ma jiraan? markii aan kooxda kusoo biiray sanadkii 2019 waxay ahayd markii ugu horreysay aan koox heerka koobaad aan taga bay ahayd. waxaan la kulmay koox layska jecel yahay oo laysa soo dhaweynayo min tababare ilaa iyo ciyaartoy, min guddoomiye ilaa iyo ciyaartoy aan idhaahdo. koox iswada jecel ayaan ku biiray, runtiina aada iyo aad baa laygu soo dhaweeyey ilaa iyo dee aan kooxda rasmiga muddo dhowr bilooda kaga mid noqday, ilaa 2 bilood ahayd. markaa ma odhan karo wax caqabadoo aan la kulmay ayaa jirtay, ma odhan karo. intee koob baad kala qayb qaadatay kooxda? waxaan kala qayb qaatay koobabka heerka koobaad ee rasmiga ah ee wasaaraddu ay dhigto. waxaan kala qayb qaatay 4 koob, 3 koob aan idhaahdo. 3daa koob waxay ahaayeen koobkii tahriibta, ka hortaga tahriibta, iyo koobkii Talasam Cup, iyo koob kale oo sanadkii dhamaaday imika la qabtay oo muddo gaaban socday. 3daa tartan ayaan kala qayb qaatay. intee koobaad ku guuleysay 3daa koob? wallahi 3daa tartan noomay suurtagelin inaan anagu noqono kooxda koobaad ama kooxda ku guuleysatay tartanka. 2011 mise 10 tartankii la qabtay ee looga hortagay tahriibta iyo ka ganacsiga dadka ayaanu galay kaalinta labaad, iyadoo markaa waqtigu dee uu naga heliyayo ay nasiibna lagaga badiyo rikoorayaalna lagaga qaaday. yaad isku soo baxdeen waqtigaasi? waxaan isku soo baxnay kooxdii Habboon Construction. markaa rikooryaal bay kaga guuleysteen? rikooryaal bay dareenkeenu ahaa maalintaasi maxamed khadar? wallahi dareenkeygu maalinta aada iyo aad buu kacsanaa. waxaan dareemaynay cilado iyo khaladaadka imanayay dhinaca garsoorka, oo anagu dee waxaabanu isa siinay inaanu magaranaysaa koobka aan hantiyayno, maadaama oo aan dee golol macquula dhalinay oo khaladaad dhinaca garsoorka lagu diidayay. koobkaas markaan xasuusano idinka laftiina maan la odhan karay idinkaa isla saxsanaayo garsoorkaaba idinka saxsanaad miyaan la odhan karin? maya horta dee waxaa jirta guddi aan ahayn garsoorka ciyaarta ayo oo wasaaradda ah, qaladaadka dhacayana la socda. markaa qaladaadku may ahayn kuwaan anagu arkaynay ee waxay ahayn kuwa daawadayaasha iyo guddida kale ee aan ahayn markaa guddida garsoorka iyo cid walba oo ciyaarta daawanaysay dee ay ogey qaladaadka ciyaarta ka dhacay. waana wax dhacay oo dee cid maanta u qoran, anaguna nasiibkaygii baanu ka qaadnay oo kaalinta labaad baanu ka galnay. ka maxamed khadar ahaan
qof walba maxamed khadar wuxuu markuu mihnadan kubadda ku dhex jiro waxaa qof baa uu ku daydaa uu jecel yahay inuu qaabkiisa u ciyaaro kubaddiisa adigu yaad higsan jirtay yaad ku dayan jirtay ciyaartooyada somaliland ka ciyaara ciyaartooyda somaliland u ciyaari jiray kooxaha heerka koobaad soo ciyaaray waxaa anigu jeclaa kubaddooda waxaa kamid ahaa cabdi diito iyo jibriil way jireen niman badan laakiin anigu waxaan taageero khaasa u ahaa nimankan aan magacaabay keebad si gaara kubaddiisa u jeclayd inaad qaabkiisaas oo kale aada u ciyaarto wallaahi horta waqtigaa dee aad baan u da-yaraa oo waxay ahayd waqti sii horeysay oo dee aanu anagu kubadda un daawan jirnay waqtigaas oo kubadda aanaan markaa aanay nagu jirin inaan aanay kubaddayda soo bixin laakiin waxaan aada u taageeri jiray iyo jibriil baan aada iyo aada u taageeri jiray ciyaartooyada ka ciyaaraha adduunka kuweebaad jeclaan jirto taageeri jirto markaaad daawato aada isku tuumi jirtayba inaad sida ninkaas oo kale aada u ciyaari doonto amaba aada u ciyaarto ciyaartooyda duniyada ka ciyaara kulley de anigu waxaan ka ciyaara khadka dhexo waxaan taageera oo ahay nin khadka dhexe ka ciyaara inkastoonan jeclayn inaan halkan ka sheego haddana waxaa jira ciyaartooy badan oo doora oo de aan kubaddooda taageero oo ka ciyaara kooxaha dunida kubadda yaad taageertaa clubka miya qaabko waxaan taageeraa kooxda AC Milan sax maxamed khadar waxaynu taaganahay gabagabadii barnaamijkeena waxaad maanta fursad u yeelatay in aad halkan kala hadasho dadweyne badan oo inaga daawanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaliland caawa bal maxaad halkan uga jeedin lahayd bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkan gunaanadka hadalkayga aan u jeedin lahaa dhalinyarta kuwa ila facaha iyo kuwa daada igu xigta waxaan aada iyo aada ugala talin lahaa masiibada aafada ummadeena ku habsatay ee tahriibta oo ah maanta de masiibada keliyaata ee guud ahaan somaliland oo dhan ka jirta dhalinyarada ku habsatay oo in dee dhalinyartii ay naftoodii halligaan oo intay saxara iyo ay ujid dheer maraan haddana ay bad isku sii halaagayaan oo de lagaba yaabo opportunity-ga ay raadinayaan ay ka raadinayaan inay dal kale ay ka helaan in iyagoon himladii ay lahaayeenba gaadhin ay ama saxaraha ku dhintaan ama ay ku dhintaan badda marka waxaan dhalinyarta kula talin lahaa ha laga digtoonaado khatarta ay leedahay tahriibtu daawadayaal intaasna waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii ciyaaraha oo habeenkan caawa uu noogu marti ahaa maxamed khadar axmed kabadhe oo loo yaqaano oday ahna kabtanka kooxda dowladda hoose barnaamijkan barnaamij lamida daawadayaal intaan iskugu iman doono waa kamaradii foosi axmed caynab waa habeyntii isku dubaridkii maxamed ibraahim dhimbiil iyo cismaan anigoo jamaal axmed naasir oo barnaamijkan idiin soo jeedinayana waxaan idinkaga tegayaa is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu